ka fakara oo keliya moodooyinka cusub ee dharka, bal waxaa caado u noqotay qaar badan oo dumarka ah inay ku howlmadaan raadin hadba moodadii soo baxda. suuragalna ma aha inay dhaafaan wixii hadba cusub ay yahuudda iyo kirishtaanka iyo kuwa dabada u ahay soo saaraan. laakiinse wallaahi haddii la weydiiyo midood wax ka mida kitaabka alle ama tiirarka salaada, ama haddii lagu yidhaahdo maxaad u horumarsatay noloshaada dambe ee dhabta ah, ayan kelmad kugu jawaabteen. bal waxaa suuragal ah inayan waxba ka aqoon. alla doohnaan badana qafladda ay waxaan kaaga digaynaa oo haddana kaaga digaynaa, waxaan kaaga digaynaa oo kaaga digaynaa addoontii allahy, waxaan kaaga digaynaa dhoohnaanta iyo ismoogaanta. imise ayaadka allah baana lagu dul akriyaa, laakiin meeday ku cibro qaadashadii. waxaa lagu casumay abubakar sadiiq allaha ka raali noqde, xaflad martiqaadaha ay joogeen koox asxaabtii ah allaha ka wada raali noqde. wuu fadhiistay isagoo ku dangiigsaday geed jiradii, wuuna ooyayey. markaasay intay u yimaadeen asxaabtii ayaa waxay ku yidhaahdeen maxaa kaa oohoyey abubakarow? markaasuu yidhi wallaahi waxaan eegayay shimbirkan duulaya. markaasaan ku idhi wanaaggaaga shimbir yahow, biyo ayaad iska cabbaysaa, dhirtana waad iska miranaysaa, xisaab la-aan iyo ciqaab la-aan. annaguse xisaab iyo ciqaab baa jirta. cumar bin khataab allaha ka raali noqde, maalintii geerida u timi wuxuu ku yidhi wiilkiisii cabdullaahi, madaxa ciidda ii dhig, madaxa ciidda ii dhig cabdullaahi. ma yeelin arrintii, wuu miyir beelay cumar. markaas buu haddana soo baraarugoo miyirsaday oo haddana ku yidhi wiilkaygiiow ii dhig madaxa ciidda. markaasaa wiilkii yidhi aabow maxaa dhib ku jira haddii aan madaxa. wuxuu yidhi cumar wiilkaygiiyo madaxa ciidda ii dhig, hoogayga iyo hoogga hooyaday haddii alle ii naxariisan. markaa waxaa u soo galay ibnu cabbaas oo ku yidhi bishaarayso amiirkii mu'miniintow. wuxuu yidhi hay odhan amiirkii mu'miniintow, waxaan maanta u kallahsanahay xaggii aakhiro. markaasuu ku yidhi bishaarayso, waad muslintay islaamkaagiina wuxuu noqday guul, oo waad haajirtay haajiradaadiina waxay noqotay furasho, oo waxaad qabatay xukunkii iyo khilaafadaadiina waxay ahayd naxariis. wuxuu yidhi cumar wallaahi ibni cabbaasow waxaan rabi lahaa inaan waxba laygu lahayn, anna aanan lahayn waxba. wallaahi haddii uu dhawaaqa mid dhawaaqaya ardulmaxsharka korkeeda oo uu yidhaahdo ahlu maxsharkow dhammaantiin jannadaad gelaysaan mid mooyaane, filaha inuu yahay ibnu khataab. alla baan ku dhaartaye haddii aan lahaan lahaa arlada muggeedo dahab ah waxaan iskaga furan lahaa cadaabka alle. wuxuu ahaa cismaan allaha ka raali noqde. haddii uu soo mara xabaalo kii waxaa lagu yidhi amiirkii mu'miniintow maxaad loo idaa markii aad xabaalaha aragto? wuxuu yidhi waa dhab, waxaan maqlay rasuulkii alla indha la saaro oo qabriga ka darani ma jiro, wax indha la saaro oo qabriga ka darani ma jiro. haddii loo fududeeyo qofka qabriga dhexdiisa wixii kasii dambeeyo ka fudud haddii lagu adkeeyo. cali bin abi aalib wuxuu soo mari jiray xabaalaha. dhegaysa wuxuu mari jiray qabuurta. wuxuu odhan jiray ahlu qabuurkow muuqaalkiina soo waa wax hoostiinana waa wax alla laga kaalmaysto. wuxuu odhan jiray ha ku degmina deganaanta qabuuraha iyo xasiliinadooda. imise naf ayaa dhexdeeda lagu cadaabaya, imise naf ayaase dhexdeeda lagu imtixaanaya. haaruuna rashiid ayaa wuxuu dhisay daar weyn, wuxuuna ku wareejiyey derbi, wuuna qurxiyo oo hagaajiye oo goglay. dabadeed wuxuu isugu yeeray umaradii iyo wasiiradii iyo gabyaayada munaasabada guriga uga hadlaan oo wax uga sheegaan. nin walba wixii uu odhan karayey ayuu yidhi, ilaa ay soo gaadhay gabyaagii zuhdiga badnaa abulcataahiya. markaasuu haaraan yidhi abulcataahiya maxaad ka leedahay aniga iyo guriga? markaasuu yidhi intaad doonto noolow adigoo nabada, adigoo hoos harsanaya daaradaa dheer beerahood, oo waxaad doonto subax iyo galabba lagu keenayo. kadib naftu dhunyeerista gaadho, markaas baad ogaan inaadan ku jirin waxaanan hubnaan ahayn. haa wallaahi markay naftu soo gaadho xowlmariidka iyo xididka dhuunta, markaabaad ogaan inaadan hubnaan mooye wax kale aadan ku sugnayn. yaziidana raqaashi wuxuu yidhi waxaan usoo galay caabid alla yaqaan ah. ee dhegaysa addoontay allay, dhegayso walaashayda muslimadda ahay qisadan waxaa ku sugan oo ku jira cibrad iyo waano. wuxuu yidhi waxaan usoo galay nin alla yaqaan ah oo san yihiin isagoo sakaraad ah oo ku jira ilbiraqsiyadii ugu dambeeyey noloshiisa. wuxuu yidhi waxa ooyey aabihii
markaasuu ku yidhi aabe maxaad la ooyeysaa wuxuu ugu jawaabay wiilkaygiiow waxaan la ooyaa waayitaankaaga iyo sakaraadka aad tahay markaasay ooyey hooyadii wuxuuna ku yidhi hooyadii naxariista iyo dhibrinta badneeday maxaad la ooyeysaa waxay tiri wiilkaygiiow waxaa iga oohinaya waayitaankaaga iyo sida aan u fakeri doono dabadeedna waxaa ooyey xaaskiisii iyo carruurtiisii intuu eegay ayuu ku yidhi maxaad la ooyeysaan waxay ku yidhaahdeen waxaan la ooyeynaa waayitaankaaga iyo agoonta aan noqon doono wuxuu yidhi fariisiya dabadeed wuxuu yidhi waxaan arkaa in dhammaantiin aad u ooyeysaan adduunyadayda haddaba ma idinku jiraa mid u ooyaya aakhiradayda mase idinku jiraa mid u ooyaya waxaan kala kulmi doona ciidda dhexdeeda mase idinku jiraa mid u ooyaya su-aasha munkar iyo nakiir waxaan ku jawaabi doono mase idinku jiraa mid u ooyaya is-hortaagayga alleh subxaanahu wa tacaala dabadeedna wuu dhacay oo nafta ka baxday ka fakar oo ka fakar gabowgaaga iyo meesha laguu celinayo ka fakar aasitaankaaga lagugu aasayo ciidda dhexdeeda iyo meeshaad degayso ee aad deganaanaysa ilaa maalinta iyadoo hilibkaaga iyo lafahaagiiba ay ciiddu qayb u cuntay cabdiraxmaan ibnu yaziid wuxuu ahaa cabdulmaalik ibnu marwaan oo madaxweyne ahaa saaxiibkii markii uu dhintay cabdulmaalik oo dadkii qabrigiisa ka noqdeen intuu iskortaagay cabdiraxmaan qabriga ayuu yidhi waa adiga cabdulmaalik ee inta wax i ballan baqi jiray waxaad waa beriisatay adigoo aan mulkigaagii ka sidan waxaan ahayn kafancad kumana lihid dhulka waxaan ahayn 4 dhudhan kiisii wuxuuna ku dadaalay cibaadadii ilaa uu ka gaaray meel aada u fiican ma waxaad mooday addoontii allahy in dhimashadu fududdahay sakaraadkuna sahal yahay waxay tiri caaisha markii ay nebiga u timid geeridu wuu miyir beelay markuu miyirsaday ayuu wuxuu odhanaya geeridu waxay leedahay sakaraad geeridu waxay leedahay sakaraad allah ayaa iiga kaalmay dhimashada dhibaatadeeda marka fakartay cidlada qabriga iyo ciriirigiisa oo jirkii camirnaa cadcad dhexdiisa ugu go-ayo marka fakartay dhararka maalinta qiyaama camalka ee cadaaladda loo dhigi doono waa adiga dheesha iyo ciyaarta iyo doonaanta isaga jira ah geeridaadiina way kugu soo looga siibayo xubin kasta oo jirkaaga ka mid ah cid kale u diin ku soo celin markii ruuxda kaa baxdana indhahaaga waa la dabooli lugahana laguu fidin madaxana yari hor lagugu soo taagi markaasaa la dadejin diyaarintaada oo la keeni kafan iyo xunuud biyahana la soo dhoweyn ka waran addoontii allahy haddii aad taal gogashaa ood ku sugan tahay birkinta firaashkii ugu dambeeyey aad kaga jiifsatay adduunka iyo birkintii ugu dambaysay aad dunida ka barkato oo ay ku hareero joogaan aabbaha iyo hooyada oo ay ku hareero joogaan walaalaha oo ay ku hareero joogaan carruurtaada iyo ninkaagii iyagoo kugu eegaya ilnaxariis aabba yaaban marti booqasho ah walaalo ooyaya guri tiiraanyaysan oo murugeeya naxdintaal adigoo sidaa ah oo xaaladaa ku sugan ay indhahaada soo hormaraan waayihii aada soo martay iyo xaalkii noloshaadii maalmihii aada ilmaha ahayd bal ka waran addoontii allahy haddaad xaaladaa ku sugan tahay oad soo xasuusato wixii ku dhaafay cimrigaaga siday u dhammaadeen iyo siday ku mareen iyo siday maalmaha iyo habeenada kuugu dhaafeen orod una dhammaadeen wax walba dhammaade waa kuka adigana aad ka bixi rabtid adduunka aad ku dhowdahayna inaad adduunka ka goosato aakhiradana aado alla jalla wacala wuxuu inoo suurayn xaaladda wuxuu yidhi alla weyne subxaanahu watacaala وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد
مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لبن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها من ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا واسيدا دماتك يا جبجبدا الموتكي ما garanaysid waxa aad sameyn aqligu isku darsamo qalbiguna isdhexyaaco cagihiina ay qaboobaan wuxuuna bilaabay inuu ruuxda siibo sibida ruuxdana ka daran oo ka xanuun badan bir madaxa la isaga garaaco ama jeedal adag oo la isku jeedaliyo bal ka xanuun badan oo ka daran minshaar qofka laba gobol looga kala dhigo waayo qofku wuxuu dareemaa xanuun markay jirku wax soo gaaraan dhibaato ah jirka oo ruuxda la xiriira darteed bal ka waran haddii marka laftigeedii la siibayo addoontii allah adigoo xaaladdaa ku sugan markii laga saaro naftaadii jirkaagii oo meyd xun noqoto aan wax nuuxsi ah lagu arag dadkuna ilmeeyaan oo dhammaan yidhaahdaan innaa lilaahi wa inna ilayhi raajicuun way dhimatay gabadhaydii way dhimatay xaaskaygii way dhimatay hooyaday way dhimatay walahashay oo ay isu soo sheegaan dadka kalena noqdaan mid rumaysan la iyo mid qaadan la iyo mid naxdin la dhaca bal ka waran addoontii allah marka lagu dhiga rababtii lagugu meeri lahaa oo lagu meero adigoo markaa ka hormeeri ayaa lagu meeri kadibna waa lagu kafni meeyo dhalkii qurxoona meeyo duruucdii khafiifka ahaa may wallaahi wixii aad adduunka ku qaadan jirtay waxba kaama raacayaan waxaad kala tegaysaa oo keliya mara dhowr mitir oo kafan la yidhaahdo way ku kafni maanta maya laakiin maanta maya oo waxaa lagu dhex gelin kafantaa dhex gelin wayna ku sharfi addoontii allah ma garan waxaa lagugu sharfayo dhowr marinood oo xunuud ah oo ay si fiican u garanayaan mootida adiguna aada baran doonto maalin maalmaha ka mid ah kadib waxay ku eegayaan eegmadii u dambeysay ayay ku eegayaan ayan eegma kale ka dambeyn waxayna ku sagootintii u dambeysay talow waa sidee xaalka hooyadaadii ku dhashay maalinta imisay kugu sidii uurka waxay kugu sidii uurka 9 bilood idoo kugu soo dhibaatootay tarbiyadaadii in badan haddii ay daal iyo ciriiri iyo culays dareento waxay fiirin jirtay wejigaaga wanaagsan markaasay ka tegi jireen oo dhaafi jireen dhib iyo daal kasta ay dareemaysay laakiinse maalintaa kadib feero kale ma jidho markaa kadib waxaa lagugu qaadi naxashkii miidka iyadoo ay ku sidaan 4 qof ay ku qaadi addoontii allah waa lagugu tukan markaa ka hor adigaa tukan jiray way ku qaadi oo ku kaxayn adigoo awalta socon jiray kadibna ma garan halka lagu geyn ma waxaa lagu celin gurigaagii may wallaahi ma waxaa lagu celin carruurtaadii may wallaahi ma waxaa lagu celin ehelkaagii iyo ninkaagii may wallaahi waxay ku xambaari daartii dambe waa kaaga dhammaatay dunidii waxay ku geen qabuurta intee iyo intee baa lagu aasay mowti
ويكو حنباري أدونتي الله ويكو حنباري أدونتي الله وكو كحين أديقو ميدحنا دقاقينا هذا نأرانين مي كدب ويكو ديقي قبرك وحيكو ديقي قدكاقي وحانا لغاسا ورقلوينكي oo qabuurtii iyo godadkii lagu keenay nuurkii baa laga keenay oo mugdi gudaraah lagu dhigay markaasi lagu dhigay ilka waxa uu daadagay hoos xigaaladaadii waxayna ku dhigay oo ku birkin dhagaxa kadib waxay oran ka soo bixiyay hebel iyo hebel qof oranaya ma jiro in soo bixiyay gabadhaydii ama waa walaashay kaliya bay kaaga tagayaan meesha adoontii allah kadib waxaa soo baxaya labadii nin ee qabriga ku dhigay ma garan kadib waxay kugu sameen kadib waxay kugu boogay ciida kadibna wax yar bay istaagi dabadeedna dhabarka ku jeedin oo ka tagi adoontii allah maxmiyadii diintay xaruntii dacwadanay helidiladii ummadanay jawhartii mujtamacay tii islaamka dooraysay khayr qabtadiyay maxaad u hormarsatay aakhiro oo aad alla la hortagi dhageysa hadalkan alla jalla wa ala todoba sama korkood ka yiri alla jalla wa ala wuxuu yiri hatta idha jaa ahadahum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. markii suulka la afuufana maalintaas abtirsiiye kama dhaxeeyo isweydiinna mayaan
kii ay miisaanadiisu cuslaadaanna kuwaasu waa libaaneen kii ay miisaanadiisu fududaadaanna kuwaasuna waa kuwa naftooda khasaariyey oo jahannamo dhexdeeda ku waaraya naarta